maamulka degmada Holwadaag oo kaashanaya waaxda gaadiidka dawladda hoose xamar iyo shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda ayaa habeenkii xalay ahaa howlo nadaafadeed ka sameeyay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir. howlaha nadaafadeed ayaa waxaa horkacayay ee degmada ka socda gudoomiyaha degmada Holwadaag Bashiir Cabdi Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Maryan Cabdullaahi Hilowle, gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee degmada Holwadaag Cabdullaahi Axmed Siyaad waxa ayna booriyeen sida ay dadka deegaanka si isxilqaan ay ugu sameeyaan howlaha nadaafadeed ee degmada ka socda. howlaha nadaafadeed waxaa ka qayb qaatay shacabka ku nool degmada waaxyaheeda kala duwan ee degmadaasi mar ay si wada jir ah ula hadlayeen maamulka degmada oo hormuud ka ahaa howlaha nadaafadeed ayaa sheegay inay si joogto ah u wadi doonaan howlaha nadaafadeed ee degmada ka bilowday shacabka degmadana ay u diyaarsan yihiin sidii ay u nadiifin lahaayeen degmadooda. maamulka gobolka Banaadir ayaa wada dadaalo lagu shaqeynayo nadaafadda iyo bilicda degmooyinka gobolka Banaadir gaar ahaan nadiifinta wadooyinka magaalada Muqdisho. عبد القادر محمد كالقعل بنادر تي في مقالة مقدشو.